لنا إلا أحب الله جل علاه ومن حبي له أخشى حياتي كلها لله حياتي كلها لله فلا مولى لنا إلا حياتي كلها لله فلا مولى لنا إلا أحب الله جل علاه ومن حبي له أخشى حياتي كلها لله أصون النفس أحميها بنور الله أهديها أحميها بنور الله أهديها بحب الله أسقيها لتفرح عندما تلقى بحب الله أسقيها لتفرح عندما تلقى حياتي كلها لله حياتي كلها لله فلا مولى لنا إلا حياتي كلها لله فلا مولى لنا إلا أحب الله جل علاه ومن حبي له أخشى حياتي كلها لله إذا ما الحب لم يسبي فؤاد المؤمن الصبي إذا ما الحب لم يسبي فؤاد المؤمن الصبي فوا أسفا على القلب لأن الزيف قد غشاه فوا أسفا على القلب لأن الزيف قد غشاه حياتي كلها لله حياتي كلها لله فلا مولى لنا إلا حياتي كلها لله فلا مولى لنا إلا أحب الله جل علاه ومن حبي له أخشى حياتي كلها لله يقيني بين جنبي وأسى بالهدى سعيا يقيني بين جنبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله يا صاحبي waxaan qaadanaynaa cashirkeeni lixaad casharadii imtixaanaha ahaa maanta taariikhda islaamku waxa weeye 12 Shacbaan 1438 waa maalin talaada maanta cashirkeena lixaad wuxuu ku saabsan yahay kalahaan 1301 ilaa iyo 1500 kalahaan waxa weeye waa af Soomaali waxa weeye markii aan fasirno af Soomaali baan fasiraynaa waxaan ku fasiraynaa af qalaad waxaan fahmaynaa afka qalaad baan fahmaynaa af Soomaaliga fahmayno waa October qof kasta waa fahmaya laakiin kalahaan la fahmayo marka maadaama aan la fahmayn waxaan u soo maraynaa kuwii la fahmayay waxaan u soo maraynaa March 1900 sanadka 1900 ilaa iyo 2099 markaas waxaan fahmi doonaa kalahaan sanadka 1301 ilaa iyo sanadka 1500 markaas aan fahmi doonaa maanta waxa weeye 19 Athawr 1395 waxa weeye waa islaami waxay soo bilaabatay taariikhdanu hijriyadii rasuulka sallallahu alayhi wasallam maanta waa 19 gusoorahanu wuxuu la socdaa kalahaan buu la socdaa 1395 waa islaami in ay tahay 1395 aniga waxaan rabaa inaan bilaabo waxaan jeclaan lahaa in la igu raaco waxaan ku talinayaa in taariikhdaas la qaato sababta aan u leeyahay waxa weeye anagu hadda waxaan isticmaalnaa sano sabti iyo sano axadaad iyo sano isniinaad baan isticmaalnaa haddii hadda la weydiiyo taariikhdii daraawiishta oo kale haddii la weydiiyo iyo Sayyid Maxamed Cabdulla Xasan waxaa leenahay waa isniin hadda meeqa isniinaad baa laga joogaa halkaa waxaad ka dareemaysaa taariikhdaas si toos ah inaan loo tilmaami karin si la fahmi karo inaan loo tilmaami karin in uu wareer ku jiro in ay u baahan tahay gadaal in loo xisaabsho in la yiraahdo meeqa boqol oo sano laga joogaa markaas inta isniinada laga joogo in gadaal loo xisaabsho
waa dhib badan tahay. waxaa ka fiican markaas taariikhdaas islaamiga ah oo shamsiga ah oo islaamku xisaabsado inaan qaadano oo aanayno taariikhda Soomaalidu waxa weeye 1395 oo aan la qabsano taariikhdaas burushta islaamiga ah. maanta waa 19 waa Ingombe waa 1395 waxa weeye sawaaxiligu waxa weeye waa wadan Kirishtaana inkastoo islaam ku jiro. maanta waxa weeye 19 waxa weeye Ordubahishad burjiga la yiraahdo Ordubahishad 1396 waxa weeye waxa iska lahaa beershidii hore taariikhdan waa islaami. waxa lagu jiraa code business waxa lagu jiraa code business 6258 waxa weeye masaaridii hore ee qadiimiga ahayd. halka waxaad ka fahmaysaa in ay ka facweyn tahay taariikhahan oo dhan oo shamsiga ah. waxa la leeyahay ayadaa laga soo dabaqaatay taariikhdaas masaarida ah ayadaa laga soo dabaqaatay sheeko dheer bay leedahay. waxay fiirin jireen xidig la yiraahdo shicra waa xidiga quraanka lagu sheegay wa annahu huwa rabbu shicra. xidigaas quraanka lagu sheegay ayay xisaabin jireen. subaxa uu soo baxo ayay waxay oran jireen kow baa sanadku yahay waa dabaaldegi jireen. markaas ilbaxnimadaas waxaa ka qaatay caalamka dhan baa ka qaatay. waxaa lagu jiraa kowda Gimbot waa Ethiopia 2009 waa Kirishtaani. waxaa lagu jiraa 26 Nisan 2328 waa Islaami. waxaa maanta ay tahay 9 May 2017 waa Kirishtaani. inta markaa inta aan uga haro taariikhahan waxaad arki doontaa in thaqaafada adduunka ay isbedesho. dawladdii awood yar in thaqaafadeeda la xabaalo ilbaxnimadeeda in la xabaalo oo ay xabaasho dawladda markaas soo baxday oo awoodda la soo baxday. hadda caalamka waxaa haysta 9 May 2017 taariikhdaas masiixiyadda baa caalamka hadda haysata. waxay inqilaabtay oo ay ka dulmartay xadaaradan bay ka dulmartay. xadaaradan waxaa iska lahaa taariikhdan Dulqarnayn oo aad ogtihiin howlaha uu qabtay iyo inta meelood uu tagay iyo karaamadiisa ninkaas oo la ogyahay ayaa taariikhdan iska lahaa. taariikhdiisa hadda waxay maraysaa 2328 maanta waa 26 Nisan. midana inqilaabtay waxay tiri maanta waxa weeye sidaan oo kale sida May ay 9 u tahay 9 bay yiraahdeen. meesha ay ka yiraahdeen Nisan waxay ka dhigeen ayaar maanta waa ayaar bay ku leeyihiin. meesha ay taro ka tahay 2328 oo ay tahay taariikh ka facweyn waxay ka dhigeen taariikh la fac ayay ka dhigeen 2017 bay ka dhigeen. halka waxa ku dhacay inqilaab baa ku dhacay. labada taariikhood ayaduna waa is inqilaabeen. taariikhdan waa Ethiopian waxay soo qaadatay taariikhdii masaarida qadiimiga ahayd sidii loo xisaabin jiray iyo maalintii laga bilaabi jiray iyo muxuu ahaa bay soo qaateen. laakiin taariikhda kaliya ayay waxay ka dhigeen 2009 bay ka dhigeen. magacii ahayd businessna waa bedeleen waxay ka dhigeen magac Ethiopian ah. inqilaabkaas baa ayadana ku dhacay. midaan Ordubahishad waxay ahayd taariikh majuusiya dabcaabud ayagoo ahaa nimankan la yiraahdo Persian ayay lahaan jireen. waxay qaateen islaamnimadii islaamkii markuu gaaray ayay waxay yiraahdeen waxaan ka dhiganaa taariikh islaamiya 1396 baan ka dhiganaa. midaan la yiraahdo sawaaxiliga ah Ingombe magac ahaan buu jiraa laakiin taariikh ma laha. sida anaguna aan taariikh aan u lahayn bisan ayaguna taariikh ay magaraysaa aysan u lahayn. marka labadeennaba waxaan ku talin lahaa in midaan aan magaranaysaa muxuu ahaa aan u qaadano 1395. taa markaa inta aan kaga baxo waxaan gelaynaa xisaabtan fanniga ah xisaabtan fantastiga ah ama fanniga ah ayaan gelaynaa. kabacdina waxaan gaaraynaa faa'idkii aan u soconay. waxaan sameeyey waxaan waa
sanadkii koowaad sanadkii labaad sanadkii saddexaad halkaa dhibic baan dhigay halkaa dhibicda waxaan u dhigay waxaa soo galay sanadka afraad waxa la yidhaahdo sana kabisa oo loo yaqaano leap year loo yaqaano leap year iyo sana kabisa waxa weeye waa marka Febraayo ay noqoto 29 marka 28 ay noqotona sana basiida baa la yiraahdaa marka sana kabisaas waxay keentay afartii inay halkaa ka boodo oo halkaa u boodo marka afar sano oo kasta dhibic baan dhigaynaa 4 5 6 7 waa 4 sano dhibic baan dhigaynaa 8 9 10 11 dhibic baan dhigaynaa waxa weeye sana kabisa 12 13 14 15 dhibic baan dhigaynaa 16 17 18 19 dhibic baan dhigaynaa 20 23 dhibic baan dhigaynaa oo sana kabisa ah 24 25 26 dhibic baan dhigaynaa oo sana kabisa 28 marka waxa weeye sanad kasta markii aan ka helno hal dhibic sanadkan dhibic baan ka helnay kana dhibic baan ka helnay kana mid 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 baan ka helnay taasna mid baan ka helnay sanad kasta markaan mid ka helno ayaan joojinaynaa markaan joojino haddana waxaan ku xujinaynaa ayada laftigeedii baan soo guurinaynaa annagoo dhibicda dhigayna meesha u hooseysa hadda dhibicdaana meesha u hooseysay taallay meesha u hooseysa haddana dhigaynaa midaan waxa weeye 2.13 waxaan ka dhigaynaa 2.13 dhibicda meesha u hooseysa dhigaynaa midaan waxay ahayd dhibicdu waa koreysay waxaan kor marinaynaa 9 5 20 26 dhibicda hoos maray midaan 14 dhibic bay ahayd waxaan ka dhigaynaa 4 10 21 27 dhibicda hoos baan marinaynaa midaan dhibicda awalba waa hooseysay hoos u deynaa midaan 6 dhibic 17 bay ahayd 6 17 23 dhibicda hoos baan marinaynaa inta waxaan ku xujinaynaa inaan kala siino maalmo tan waxaan siinay arbaco khamiis jimce sabti axad isniin talaado sidaa markaan yeelno hadda waxaan gaaraynaa faa'iidkii aan u soconay haddaan gaaraynaa taariikhda u sareysa u weyn waa 28 taariikhda u weyn meeshaan nambarada tan waxa weeye 28 waxaan yeelaynaa taariikh kasta oo nala weydiiyo oo ka bilaabata 1900 ilaa 2099 oo nala weydiiyo waxaan u qaybaynaa nambarkaas ugu weyn baan u qaybaynaa wixii noo soo harana halkaan la soo aadaynaa marka waxaan helaynaa March 1 markay ahayd maalintii bilaabatay mataalba waxaan ku bilaabaynaa 1900 mataalba waxaan ku bilaabaynaa 1900 March goormay koodeeda ayaan taabay bilaabatay waan qaybaynay maxaa noo soo haray 24 baa noo soo haray markaan 28 u qaybaynay maxaa noo soo haray 24 taas ayaan halkaan ka fariinaynaa 24 wata 24 maalinta ay ku aadan tahay waa maxay khamiis wata khamiis waxa weeye March koodeedii khamiis bay ahayd baa leedahay waxa ku xiga tijaabada labaad 1925 saas oo kale wax ugu qaybinaynaa 28 waxaa noo soo haraya 21 baa noo soo haraysa waxaa noo soo haraysa 21 kaas halkaa la aadaysaa 21 wata 21 waxaa leedahay sanadkaas 1925kii bisha March waxay bilaabmay axad buu bilaabmay haddana waxaan la weydiiyey 1960kii halkan waxaa la rabay inaan ka dhigo July baa la rabay inaan ka dhigo sababta waxa weeye maalintii Soomaaliya xornimada ay qaadatay laakiin hadda hal xabaan diyaarshay March kaliya ayaan diyaarshay marka maxaa noo soo haray eber baa noo soo haray markaan 8 u qaybanay maxaa noo soo haray eber halkan kuma hayno 8 ayaa eber ah 8 ayaa eber ah 8 soo hari karo marka waxa weeye March waxay koow ahayd maalin talaada waxaan la weydiiyay 1969kii sidoo kale 8 u qaybi maxaa noo soo haray 9 baa noo soo haray 9 raadi 9 waka
sagaal wadkaas waxa weeye sabti bay noqotay sagaal waxay noqotay sabti waxaa leedahay 1 March 1969kii sabti bay bilaabay waxaan is weydiinaynaa 2099 waa midda u sareysa 2099 goolbay bilaabantay waxaan u qaybinaynaa 28 baan u qaybinaynaa maxaa noo soo haray 27 halkan ka raadi 27 wakaan waxaa leenahay 1 March waxay ahayd axad 1 March waxay ahayd axad bay ahayd waxa weeye saas oo kale hadda waxaan soo qaadanay 6 su'aalood baan hadda soo qaadanay saasa marka taariikh kasta oo u dhaxaysa 1900 ilaa 2099 halkaas aad ka helaysaa laakiin waa March kaliya arday ka baxday ama dhigata jaamacado iyo dugsi sare ayaa waxay weydiiyeen maal samaysid 12kii oo dhameystiran March kaliya maxaa u samaysay Janaayo Febraayo ilaa December ma samaysay waxaan ku yiri anigu midaan yani wax daraw aan ka leeyahay malaha aniga danteedu waxa weeye waa midaas kalahan baa waxaan u sameeyay sidaa oo kale calendar aan dhicitaan lahayn oo 12kii burji ah aniga midaan ima khusayso waxa ay khusaysa waxaygiiba ay khusaysa marka waa tana ayadoo 12kii burji ay halkan ku diyaarsan yihiin markaan diyaarshay khasab waxa ah in loo bixiyo magac waxaan u bixiyay ilaalinta burushta kowda kala ahaan bay ka bilaabanaysaa 1301 waxayna ku dhamaanaysaa 30ka samalaho 1500 hadda waxaan ku jirnaa 1395 baan hadda ku jirnaa marka hadda waxaan u dhaxaynaa taariikhdaas iyo taariikhdaas baan hadda u dhaxaynaa kalahaan waa burjiga koowaad kalahaan waxa weeye waa burjiga koowaad wuxuu ku dhamaadaa 30 maalmood waxa waa sanado sidii oo kale ayaa wax u qaybanaysaa 28 wixii baaqi ku soo ah ayaa halkan baa la soo aadaysaa 28 baad u qaybisay waxa weeye 6 baa ku soo haray waxa leedahay kalahaan wuxuu bilaabmay talaado 28 baad u qaybisay waxa ku soo haray 19 waa kan waxa leedahay kalahaan wuxuu bilaabmay khamiis 28 baad u qaybisay waxa ku soo haray 9 waka waxa leedahay sabti buu bilaabmay kalahaan ilaalinta burushta ayaa magaciisa la yiraahdaa jadwalkan wuxuu kaga duwan yahay kii la oran jiray xilli Soomaali cilmiyeysan isagu malaha dambar misalba dir sagaaro oo kale ayaa kamid ah Soomaaliga malaha tirsi go'an oo ku dhamaado marka la joogo xilli Soomaali cilmiyeysan waa sida Ramadaan oo kale Ramadaan maxay ku dhamaataa ma leedahay tiro go'an ay ku dhamaato waa may marna waxay ku dhamaataa 29 Ramadaan marna waxay ku dhamaataa 30 kan waa sidaas oo kale laakiin isagu muxuu kaga duwan yahay marka saacaduhu u buuxsamaan saacaduhu marka 24 saac gaaraan ayay 31 noqonaysaa xilli Soomaali cilmiyeysan haddii saacadahan u gaari waayaan 24 saac 30keeda ayay joogaysaa hadda midkaan wuxuu leeyahay ilaalinta burushta wuxuu leeyahay number go'an numberkaas go'anna waxaan ugu sameeyay dadweyne tiro badan ayaa waxay iga codsadeen sida bilahan oo kale inaan u sameeyo number go'an haddii kale waxay leeyihiin waa lagu wareerayaa marka midaan la yiraahdo xilli Soomaali cilmiyeysan isagu hal faa'iid buu leeyahay halkiisa faa'iidna waxa weeye marka laga shaqeynayo qaacidadii hijra qamari waxay lama tahay hijra shamsi oo Soomaaliga mid ah oo lagu daray intaas oo lagu soo daray hijra shamsi mid Soomaaliga ah oo lagu daray intaas oo loo qeybshay 32 iyo jajabkaas marka laga shaqeynayo qaacidadaas baan laga maarmin midda laakiin sida caadiga ah waxa loo isticmaalayaa midaan ilaalinta burushta oo leh dhamaad go'an oo ay ku dhamaato burjiga labaad waxa weeye
dambarsame muxuu ku dhamaadaa 30 dambarsame wuxuu ku dhamaadaa 30 sidii oo kale 28 baad u qaybanaysaa 28 kaas wixii baaqi ku soo noqda ayaa halkan la soo aadaysaa everti wata markii ever baaqi ku noqoto khamiis ayay bilaamay dambarsame waa burjiga labaad haddana halkan waxaad ku arkaysaa midabkan wuxuu tilmaamayaa 4 sano oo kasoo soo mara mid ka mid ah ayaa waxay la socotaa xilli Soomaali cilmiyeysan waxay la socotaa xilmi Soomaali cilmiyeysan laakiin saddexdaas lama socoto marka midab uu leeyahay qaacidadii waa kaga shaqeyn kartaa laakiin saddexdaas qaacidadii shaqo kuma laha bulshada saddexaad waxa weeye baldaaq wuxuu ku dhamaadaa 31 isna sidoo kale 28 baad u qaybanaysaa taariikh kasta lagu weydiiyo wixii baaqi ah ayaa halkan la soo aadaysaa koob baa ku soo haray waxaa leedahay baldaaq oo koob ii soo haray waxa weeye isniin kan afraad waxa weeye diracgood oo ku dhamaada 30 xilli Soomaali cilmiyeysan waxay ka wada socdaan afartiiba hal bil ka wada socdaan saddexna kama wada socdaan kan shanaad waxa weeye 6 kor wuxuu ku dhamaadaa 31 buu ku dhamaadaa afartii sanaba waxay ka wada socdaan saddex ka mid ah mid bisa ka wada socon waxa weeye saddexdaas qaacidadii ayada ahayd waad kaga shaqeyn kartaa laakiin kaas iyo qaacidadii shaqo isma laha midka lixaad waxa weeye todob midka lixaad waa todob oo 30 ku dhamaada waxa weeye xilli Soomaali cilmiyeysan iyo ilaalinta buruushta todob wax shaqo iskuma laha midka toddobaad waa fushada 30 buu ku dhamaadaa afartii sano labana waa wada socdaan labana ma wada socdaan midka sideedaad waa gusoore hadda ayaan ku jirnaa gusoore 30 buu ku dhamaadaa waxa weeye xilli Soomaali cilmiyeysan iyo midkan wax kulli waa wada socdaan dhammaantood waa wada socdaan qaacidadii gusoore waxa weeye waa laga shaqeyn karaa samoolad baa kan sagaalaad 30 buu ku dhamaadaa afartii sanaba laba ma wada socdaan labana waa wada socdaan midka tobnaad waxa weeye dirir sagaaro waxay ku dhamaataa 31 xilli Soomaali cilmiyeysan hal xabo ayaysan wada socon saddexda kalena waa wada socdaan midka 11aad waa la xadhaqo wuxuu ku dhamaadaa 30 maalmood hal bay wada socdaan xilli Soomaali cilmiyeysan saddexna ma wada socdaan midka u dambeeya waa samalaho 12aad waa samalaho waxa weeye waxay u dhigantaa burjiga Febraayo ayuu u dhigmaa 3 sano waxay ku dhamaataa afartii sanaba 30 sanadka u dambeeya oo afraad 31 bay ku dhamaataa halkaas waxa soo gala sanadka masadii halkaas ayay soo galaysaa ama libiyarkii halkaas ayuu soo galayaa marka waxa weeye kaas markuu saas yahay ayaan haddana waxaan isticmaalaynaa waxaan hadda soo marnay ilaalinta buruushta iyo xilli Soomaali cilmiyeysan iyo cumru dunya isagu khaas wuxuu u yahay taariikhda hijriga taqwiim cumru dunya lil hijriya khaas wuxuu u yahay taariikhda hijriga oo aan dhicitaan lahayn ayuu ahaa midkan la yiraahdo xilli Soomaali cilmiyeysanna waxa weeye qaacidadii ayuu shaqo ku leeyahay qaacidadii marka laga shaqeynayo ayaa kan aan laga maarmin waxaan kaloo aan looga maarmin buruushtii ma garanaysaa muxuu ahaa marka la raadinayo manaasisha wal qamar qadarna oo manaasila marka la fasirayo lagama maarmo waxaa noo soo haray ilaalinta buruushta waxa weeye ayada ayaa si caadiya loo isticmaalaya marka aan sameynayno kalandarka sanadlaha ah markaan sameynayno waxaan ka soo qaadanaynaa cumru dunya iyo ilaalinta buruushta sanad kasta markaan sameynayno ilaalinta buruushta iyo waxaan ka soo qaadanaynaa iyo cumru dunya sanadkaas markuu dhamaado
haddana kanaan usoo arooreynaa mar kastaba kan ayaa laga cabayaa. waxaan kusoo khatimaynaa kalandarka sanadlaha ah 1438 hijra waxa weeye sanadkan hadda aan ku jirno. hijra shamsi waxaan ku jirnaa 1395 ilaa iyo 1396. halkaa waxaa ka helaynaa bisha ugu horeysa wataa bisha koowaad waa muxaram. halkaas ayay ka bilaabmaysaa waxa ugu hooseysa oo ay ku dhamaato waxa weeye 29. marka hijriga waxaa la socda hijri shamsiga sanadkii hore 1394 ayadoo ay marayso 14 kalahaan. halkaas kacdaas waxa weeye kalahaan wuxuu kasoo bilaabmay sanadkii hore 13 maalmood baa la go'day. maalinta 14aad ayaa halkan soo fushay. marka maalinta 14aad ayaa halkan soo fushay. halkan waxaa ku dhamaaday kalahaan. halkaas waxaa ku dhamaaday kalahaan. halkaasna waxaa ka bilaabmaya waxa la yiraahdo dambarsame. markaan galnay midabkii waa isbedelay. wuxuu noqday madow aad u culus. awal wuxuu ahaa madow khafiif ah. labada madowba waxa weeye halkaa gu baa ku qoran. halkaa waxaa ku qoran dayr baa halkaa ku qornayd. halkaa dayr baa ku qoran. hadda si fiican u muuqato dayr baa halkaa ku qoran. marka waxa weeye waa xilliga dayrta ahayd oo la waayay oo abaarta Soomaaliya oo dhan saamatay. marka saadaasha waxaan saadaalinayay saadaal runna maaha beenna maaha. haddaad tiraahdo waxbaan saadaalinayaana waxa weeye wax dembiya maaha. ilaahay waxaan ka rajaynaynaa baa leedahay in halkaas roob khafiif ah oo dayrtii ay ka bilaabanto oo teelteela roobka culusna madowgaas culus inuu noqdo. marka madowgaas culus wuxuu noqonayaa ilaa iyo halkaasuu soo joogaa. halkaasuu ku dhammaanaya. ilaahay waxaan ka rajaynaynay roob ilaahay inuu halkaa naga siiyo. marka dambarsamihii baa soo wareegay 12 dambarsame baa halkaa usoo wareegay. halkaas waxaa ka bilaabmay markaas halkaas ku dhamaaday dambarsame. baldaaq baa halkaa ka bilaabmay. baldaaq isna waa dayr laakiin roob khafiif ah ayaa isna da badanaaba sidaan ilaahay uga baranay. halkaas waxa weeye waa khafiifkii. halkaasaan waxaan gelaynaa markaas dayrtii baan ka baxaynaa. waxaan gelaynaa cadaantaas oo ah dayr oo diraac ah. cadaantaas oo diraac ah. markaan niri muxaram waa bisha koowaad waxaan leenahay kala dambarsamana waa burjiga labaad. safar waa bisha koowaad. baldaaqna waa burjiga saddexaad. rabiicul awal waa bisha saddexaad. diracgood waa burjiga afraad. rabiicul aakhir waa bisha afraad. lix korna waa burjiga shanaad. jamaadul uula waa bisha shanaad. todobna waa burjiga lixaad. saasuu ku soconayaa. halkan waxaa kugu qoran ayaamihii meesha dhexe ayaamihii baa kugu qoran. marka waxa weeye 6 biloodna dhinacaanay ka jirtaa. ayaamaha 6 bilood baa xagga ka jira iyo 6 burji. xaggana waxaa jira 6 bilood iyo 6 burji. ushaan cad waxay noqonaysaa jimcay ku dhacaysaa. ama xagga ha ka timaado ama midig ha ka timaado ama bidix ha ka timaado waxay ku dhacaysaa jimcay ku dhacaysaa. waayahay halkan waxa weeye ramadaan wuxuu bilaabmi doonaa sanadkan hadda aan ku jirno sabti buu bilaabmi doonaa. sabti kowdii ramadaan wataas kowdii ramadaan wataa. ciidul fitriga insha Allah waa shawaal wuxuu noqon doonaa isniin. ciida kale oo xajka wakaa ciidul adxa maalin jimcaha ushii cadeed buu ku jiraa maalin axada. halkan waxaa kugu qoran waxaa la rabaa in la barto
kalahaan maxay ku dhamaataa dambarsama muxuu ku dhamaadaa baldaaq muxuu ku dhamaadaa diracgood muxuu ku dhamaadaa lixkor muxuu ku dhamaadaa todob muxuu ku dhamaadaa fushade muxuu ku dhamaadaa gusoore muxuu ku dhamaadaa samalood muxuu ku dhamaadaa dirir sagaara muxuu ku dhamaadaa laxadhaqo muxuu ku dhamaadaa samalaho oo marna ku dhamaata 3 sano 30 sanadka afraadna ku dhamaada 31 waka halkan waxaan ka helaynaa laba maalmood halkan waxaan ka helaynaa laba maalmood oo midab leh halkan waxaan ka helaynaa laba maalmood oo midab leh labadaas maalmood oo midab kale waxa weeye waa dayrta soo socda halka dayr baa ku qoran waxa weeye dayrta soo socota oo sanadkeedu yahay 1395 waxa weeye kalendarkaanu waa kalendar waxa weeye sanad la ah sanad kastaba mid baa la sameeyaa ayadoo laga soo guurinayo cumrudiya dhinaca hijriga waxa laga soo guurinayaa taqwiim cumrudiya lil hijriya dhinaca shamsigana waxa laga soo guurinayaa shamsiga Soomaaliga ah ilaalinta burushta halkaana lagu isugu keenayaa markaas maxaa helaynaa xilliyadii iyo bilihiiba labadiiba halkaana laga faa'iideysanayaa wassalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته.